السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan ka hadlaynaa maanta hadduu ilaahay idmo capitalization. Capitalization is the writing of a word with the first letter as uppercase letter and the rest of the word as lowercase letters. Capitalization waxa weeye waa in xarafka ugu horeeya laga bilaabo xaraf weyn inta kalena xarfo yar yar. Tusaale markii la rabo in magac la qoro oo kale xarafka ugu horeeya waxaa laga dhigayaa xaraf weyn inta kalena waxaa laga dhigayaa xarfo yar yar. Tusaale mubaarak oo kale marka la rabo in la qoro inta waxaa laga dhigayaa xarf weyn laga dhigayaa inta soo hartayna waxaa laga dhigayaa small. Marka waxaa jira waxa la yiraahdo uppercase and lowercase. Uppercase waxaa la yiraahdaa waa xarfaha waaweyn, lowercase waa xarfaha yar yar. marka tusaale wabiyada oo kale magacyadooda waxaa laga dhigayaa capital xarafka ugu horeeya. caasimadaha oo kale Mogadisho oo kale xarafka ugu horeeya waxaa laga dhigayaa capital xarf weyn laga dhigayaa. luqadaha oo kale English xarafka ugu horeeya waxaa laga dhigayaa English, ida waxaa laga dhigayaa capital. Arabic oo kale eeda waxaa laga dhigayaa capital. Soomaaliya oo kale esta waxaa laga dhigayaa capital. marka waxaan filayaa in la fahmay waan soo koobay. please subscribe gareey channelka saad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah. isma dhaafin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.